السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاميلي soo dhawaada meel kasta aad joogtaan halkiina ka warama aniga dhankayga alxamdulilahi rabbilcaalamiin allahuma laka alxamdu ilahay waa ii nimceeyey idin kale waxaad iga barya subxana wataala sidaas ka wanaagsan. waa barnaamijkiini dhiirigeli naftaada dhiirigeli walaalka. maanta adduunyada waxaa loo hamiyadig leeyahay geed dheer iyo geed gaban loo fuushan yahay waxay tahay in la xoroobo oo lagu noolaado xornimaduna runtii ma aha wax oo si yaro fudud ka mid laakiin wax u baahan shaqo badan in la geliyo, juhdi badan in la geliyo. aynu u baahannahay nafteyna inaynu wax badan ka shaqeyno. maanta dadka waxay la kulansan yihiin yani xaalado badan bay ku sugayin oo ah inuu qofkii miisaan weyn iska fuulayo oo la yaabay uu leeyahay okay miisaanka goorma ii fuulay, sideen isaga dejin karaa, calories qaldan baa soo galay, sideen mataqaanaa nolosheeda u saxan karaya, sidee cunteeda u sixi karaya. waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin shaqo dheer la sameeyo. wax intaad seexato maanta aad soo kacayso maaha. dadka qaar waxay xal moodaa inay jimka tagaan. jimka haddii jimka keliya wax ma sameynayo waxna ma dhimo nolosha adduunyada. wax keliya wax sameeyana ma jiro, laakiin waxyaabo tiro badan oo la isku dardaray baa magac iyo muuq qurux badan oo macno sameynaya ay kasoo baxaan. markaad hesho 80% cunto dabiiciya iyo 20 sports markaasay wax fiican oo qurux badan ay noqonayaan. laakiin haddaad samayso 80 sports iyo 20 nutrition oo mataqaanaa aad hesho ma shaqeynayso. yani waxa weeyaan waxaa tahay qof khasraan oo waqti bixiyey, juhdi galay, laakiin aan sameynin wixii saxda ahaa. marka intaad wax sameyn marka hore waxaad u baahantahay inaad fahanto waxan, inaad barato, inaad yani wax kasta waxay leeyihiin wada loo maro. waxaa jira maanta dadkani inay inagii dhakhtarka aad moodo inaynu saaxiibnayba oo mataqaana yani xaalado badan ay nagu soo kordheen oo qofkii dhakhtarkii ka dhammaanayn dhakhtarkii dawo soo qorayo, dawooyin kala duwan u wato. markaad gurigiis tagto hadaad tiraado niyow kiniinkii madaxaan u baahanahay magacyo u bixinayaba. waxaad rabtaa midka 5 daqiiqaad rabtaa, mid 10 daqiiqaad rabtaa, mid waxaad rabtaa 1 gram ama 500 gram baad rabtaa. yani qaanadan buu u leeyahay. sababtuna ay tahay in dhakhtarkan aad u tagaysaa war xal kuma hayo. sababta dhakhtarka u geyna ay tahay cuntaada xumaatay. marka dhakhtarkii u tagtana horta marka hore adaa waramaya, dee waranto oo tiraado dee waxaas ahay waxaas kadibna dhakhtarka wuxuu garanaya wixii ku habboon dawaa lagu soo qoraya dawadaas sidaas u cun, sidaa u isticmaal. marka waxaad noqonaysaa qof dawooyin ku nool. dadka badankeena dawooyin maanta ay ku nool yihiin sababtu ay tahay cuntooda qaldantay. dhakhtarku wuxuu ku oranayaa miisaan baa ku saaran iska soo dhin, laakiin isagoo kuma sheegay sirtii ma hayadeed mataqaanaa miisaanka sir gym tag. yani waxaa laga yaaba dhakhtarka markuu kuleeyahay gym tag ama miisaan shirin, dhakhtarka laftigiisaa buuranba oo u baahan dee hadduu gym wax taray isagoo soo mu tagin. ildiimse dhakhtarood mataqaana dadka yidhahda tag ama dumarka ku yidhahda suurtagal kuma aha inaad ilma qaado oo kale yani miisaanka ku saaran awgeed miisaanka iska soo dhin. laakiin dhakhtarka isagaa dee weyn ama islaantan gabadha koonaysa miisaanka iska soo daba dhakhtaradan gabadha u sheegaysa iyadii baa dee qof weyn ah. marka sirtu waa maxay? marka waxaa loo baahan waa maxay sirtu? sirtu waxa weeyaan inaad hesho cunto dabiiciya 80% nutrition iyo 20 sports. taasaad guusha ku helaysa, natiijaad ku helaysa, result fiican kaga soo baxaya. laakiin haddii dhakhtarkii kuu sheegay, dhakhtarka cilmi ahaan buu kugu sheegaya, haddii laakiin ay noqoto nutritionka waxyaabahan dee waxaa laga yaaba dhakhtarka inuu aqoon ba u lahaynba ama uu kuu diro dee qof yani waxaan takhas ku loo special oo mataqaanaa specialista uu kuu diro oo nutritionista uu kuu diro. nutritionista maruu kuu dirayna waxaa laga yaaba inaad isfahmaaba ay dhacdaba xagga dhaqankii oo kale cuntooyinka uu ku hornaya isticmaal oo kale waxaa laga yaaba inaad kaba helinba adigu. laakiin markaad nutritionista Soomaaliya u tagto uu ku caawinayo luqadaada kula hadlayo leedahay war dee hilibkana ka waran isniintii salaasada hadan ka dhigto laakiin waxaa laga yaaba inuu ku dhahdo iska badbaada hilib dhanba habtaabanba waa wada kala de. laakiin lagu dhahdo walahay noocaas cun iyadoo adoo cuntaadana isticmaalaya waxaad rabtana yani helaya. waxa weeyaan qofka yani aad rabto inaad caawiso horta waa inaad taqaanaa dhaqankiisa, wax ka taqaanaa wuxuu jecel yahay, siduu u fikirayo. marka dadkan dee qofka dhakhtarka raba inuu ku caawiyo waxaa laga yaaba inaad wax badan kala duwantiin. laakiin kan Soomaaliya waxaad jeceshoo garanaya, wuxuu ogyahay inaad biil dirto, ogyahay in dad ku sugayaan buu ogyahay. waxaa laga yaaba in de family dhanba aad usoo maqan tahay oo hooyada iyo aabaha iyo caruurtaadii baad usoo maqan tahay, walaalaha aad usoo maqan tahay. waxaa laga yaaba dadnaad jaamacada ka bixiso. qofka Soomaaliga waxaas dhan u fahmaya, laakiin ninkani waxaas dhan ma fahmayo. wuxuu kuleeyahay unha
waanaad bishii aad ku cuntaa cunto kaba soo qaadba $1 oo kale waxaa laga yaabaa adiguna inay $1,000 kusoo galo oo qolaba meeshooda aad wax ugu dirto ilaahay kugu soo dhiibay marka way adkaanaysaa waxaa leedahay markaa soo miisaankun maaha mushkiladha hase kay saarnaado marka miisaankii waa ku fuulaya mid kale kusii fulaya kadibna waxaad noqonaysaa dee ilaa marka dambe buur noqoto baad socon kari weyda iska daa labis iyo qurux iyo caafimaadkaaga halisba galo oo hadda walaalo badan waxaa jira xitaa markay seexanayaan si caadi aanu seexanayn oo mashiin maaragtay gashanaya si uu naqaska uga soo guro oo dhakhaatiirta ay ku yidhaahdeen maxaa la yidhaahdaa alxamdulillah maanta walaalahan caawiyu ka mid yahay yani noloshaada inta ka dhiman dhaktarkan xal kale maayo wuxuu ku yidhi noloshaada inta ka dhiman ayaad isticmaalaysaa doctor ilaa goormaan isticmaalaya buu ku yidhi baasho sidii noloshaada inta ka dhiman ha ama intaad miisaanka iska dhimayso yani waxaan keenaya waxa weeyaan miisaanka weyni kow wuxuu wataa falxumo wuxuu wataa xanuun wuxuu wataa dhibaato yani adiga baa iska haya adiga baan isgaranayn kuma tahay adigu marka qofku xataa isaga isgaran waaye war anu qofkaan ahaa kan mahay markuu muraadda hor istaago qofku rabay qofkani muraadda markuu istaagay qofku rabay maaha qofkani qofku baahnaa waa har baa ka horeeya waa ka muraayadda ka dambeeya marka qofka harka muraayadda ka dambeeya see loo soo saari karaya waxyaabahan dad maanta walaalahan ka caawiya ka mid tahay siduu qofkaas isagu isku heli lahaa siduu qofka isagu isku jeclaan lahaa horta hadda markaad isjeclaatad cid kalena caawin kartaa ama jeclaan kartaa ama maxaa la yidhaahdaa ilmahaaga jeclaan kartaa xaaskaaga jeclaan kartaa dadka inta badan waxay kooranayaan gabadha waxay kooranaysaa ninkayga ma jecla ama ninku wuxuu kooranaya gabadha ima jecla dee adigu way isma jeclede waa normal because qofan isagu isjeclaan sidee loo jeclaanaya adu marka hore isjeclow si lagu jeclaado naftaada si waxaad u baahan tahay because jirkaagu iyo madaxaagu uma baahna cunto badan waxaad u baahan tahay uu jirkaagu u baahan yahay naftaada u baahan tahay waxaa la dhadaa ka wada jirkaaga madaxaagu u baahan yihiin vitamins iyo minerals inta vitamins iyo minerals aad heshana waa inta aad awood yeelan karto socon karto isbedel samayn karto aad wax qabsan karto aad firfircooni heli karto maanta waxaad arkaysaa 20 jir iyo 60 jir waa isku daal caajis wahsi markaas markaa tiraahdo warsee looga bixi karaya wuxuu ku leeyahay ducada nabiga la akhrisanaya allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasli wal-bukhl waa sax way wanaagsan tahay laakiin ducada nabiga sheekhay dee ficil ku darday ducada kaliya maaha xitaa ma jirto meel ay lagu yidhi intaad gacmaha laabato ilaahay talada saaro dadaal baa lagu yidhi ilaahay talada saaro subxaana watacaala kadibna dadaal sameen weliba dadaalkaaga laba jibaar markaasaad helaysa waxaad u baahan tahay waxaas la iima qorin laguma qorin macnaheedu iska seexa maaha ha laguma qorin laakiin dadaal baa lagu yidhi haddana maanta laguma qorin laakiin beraa laguu qori doonaa sa haddaba soco taasaad guul ku gaari karaysaa runtii walaalo badan waxay maanta ay rabaan inay iyagu hab caafimaad leh u noolaadaan walaalo badan waxay la tacaalayaan caafimaadkoodii caadiga ahaa oo iyagoo oo garana meel ay wax ka bilaabaan oo waxaa la yidhi qof buu ka kuna u taliyo qof kasta wuxuu sheegayo mid wuxuu leeyahay toon cun dhakhtarka dawooyinkoodu warshaduhu waa ganacsi waa ganacsi haddana laakiin dee danada markay caafimaadka galaadna waanaad isticmaasho qaar waxuu leeyahay farmasiyada waxaa ka iibsanin dhakhtarka hawtaga waa dhakhtarkuyo shirkadan dawada samaysa way wada shaqeeyaan toon cun mid kale wuxuu oranaya toon cun waxaad cabtaa liinta inaad miiro cab mid wuxuu oranaya dacarta soo qaado yani qof buu waa kuna u tali mid wuxuu ka oranayaa soo qaado waxaa la baashan xabuubta yaanyada soo qaado shiido marka waxaad noqonaysaa adiga dhan qof loo taliyo dadkeen yani marxalada maanta ay ku sugannahay oo qofki wuu isku dayayaa qaar baa baamiye caba qaar baa kamsarta mataqaana baasha kamsar caanta lalaa shiita qaar baa xamarta cuna yani ujeedka waxaas dhan loo samaynayana waxay tahay dad waxaan ahayn ilaahay subxana watacaala uu abuuray kalar qurux badan oo kalarka kafeega ama brownka kuna fiicnaa maxaa la yidhahdaa meel qorax 24 saacadood la helayo allah subxana watacaala de mataqaana injineerka de koonkan iskale uu qorshuhu u sameeyey meeshii ay qoraxda ka helayeen 24 saacadoodna la geeyey halkii baynu ka nimid meel waxaan nimid inay qoraxba jirinba oo hawadu bedelan tahay oo qabow iyo xaalado badan ay iska jiraan qofkii iska socdaa iska jabaya marka sidee looga bixi karaya ilaa halkiina waad ka timid ay hawadu ku caawinaysay oo dadka inta badan waxay koonayaan war vitamins iyo minerals kaad ka sheekeynaysa weligay maanu isticmaalin sheekhda laakiin weligay maad isticmaalin laakiin waddankii markaad joogtay waxaa ku caawinaya hawada ku caawinaysay qoraxda ku caawinaysay vitamin D bilaashaad haysatay maanta qoraxda dawayn baa loo isticmaalaa kiina loo qaataa ninka maanta saylac iyo berbere iyo jabuuti jooga ma aaminsana qoraxdan kulul har ka hoosgal mooyaane dawaad u cuni doontaa maanta qolooyinkan cadaankuna markay fasaxa helaan afrikay ku ordaan si ay vitamin D bilaasha usoo helaan
waxyaabahaas oo dhan haddana adigu aanad samaynin oo adigu aanad bedelin dhakhtarkana wax faa'iido oo ka keenaysa horta runtii ma jirto. naftan na adiga loogu weydiinaya adaa mas-uulka ah, cid kalena ma laha. dadka waxay kuu sheegaan tirada badan waad ku daashay, dadkeenu way ku daaleen. waxaad u baahan tahay markaa mushkiladda ugu weyn ay haysataa in ka dhaaqi karlaana waxay tahay cunto xumo. haddana cuntadaada adigu aanad bedelinna meel kale ma gaari kartid. weligay baan kusoo noolaaday waxaan way soo tarayaan wax markii lagu dhintaa ma jiraan. yani waxa weeyaan waa wax soo taraya waa tartiib. marka dhakhaatiirtu inta badan waxay ka digaan xanuunkan ilaahay naga qabtay hadda dee soo batay kansarka oo kale. yani wax kaliya ma keeno, waxyaaba tira badan baa keeno. ay ka mid tahay dusuudda aynu wax ku karsano, xitaa daryada wax ku karsano ee dheehale mataqan ranjigu ka go-ayo ama kuwa ovenka wax lagu gashto kale. okay, bahalka waxaad soo ibisay isagoo madow oo kalarkaasoo kale u eg, hadhow toona wuxuu noqday caddaan. waxaa soo baxay maxaa lahdaa silverkii quraardii oo kale soo baxda. waxa laga yaabaa inay calaamadda grig oo kale soo baxda marka hore saa u eka. maxaa dhacay? because waxaas calooshaadii ku maqan yihin. dusuudda dhoobada ah ama laga sameeyey ciidana ma iibsano oo de waa qaali kuwaasi. waxa weeyaan digsigana $100 ama $150 la siinaya ka yara, laakiin $5 ama $20 iska iibsana. waxyaabahaas oo waxyaaba calooshaadi marka adiga ku maqan kama qaadi sida isla hadda laguma laha exactly. haddii dheeha aad cunto isla hadda dhimanaysaa. laakiin waxa weeyaan waxaan wax soo jiitamaya step by step. u fiirso dadkani caddaanka waxay yidhahdeen dadka ajnabiga markay qurbaha imanayeen ay yimaadeen halkan, dadkan ay u yimaadeen caafimaadkoodu wuxuu ka wanaagsanaa. dadka ajnabiga wuxuu ka wanaagsanaa dadka ay u yimaadeen buu ka wanaagsanaa. haddana kor bay ka yimaadeen, hoos bay kusoo dhaceen. waad arkaysaa isbeddelka weyna dhacay. because laakiin marka adigu meesha aad timaado waanaad la jaan qaadi kartaa. dadkani way naga cunto wanaagsan yihiin. ko maxaa lahdaa vitaminska mineralska iyagu waxay u qaataan ma si joogtaa caadiya. gabar kastoo Soomaaliyeed marka ay uur qaado waxa weeyaan dawooyin baa dabada loo soo qabtaa. birtaada dhacday, aeronta ka maqan, sidan kala tahay, kala wareeg baa tahay, sidan same. yani de waxaa la yidhi waraaba isagoo xaar badnaa buu xabagna cunay, wuu kasii darayaa. de baasha xabagta laana dee caloosha ku socota waxaa la dhahdaa markay dadka xitaa cunaan. marka waxa weeyaan inagu markii hore cuntadeena xumeed, haddana markii gabadhi ilma ku abuurmo oo ilmihii de nafaqadii la qaybsanayo iyadoo wax nafaqa lahayn cunay, waxa lagu leeyahay umusha siya shaah cadday soo badan. umusha shaah cadday soo baahnaa ama gabadhan biyo kaliya u baahanta. shaah maxaa laga helayaa? isaga waa mayna sii gelinayo. marka waxa weeyaan markii uurkii qaadana baase dawooyin loo soo qorayo oo dawooyinkii haddana ilmihii yaraayda uur jiifkii saameynayaan. waa xaalad kale. marka cuntadani waa waxa keliya suurtagelin inaad hab caafimaad u noolaato ama aad hab caafimaad u noolaan. nerfiska, dhikarka, luga xanuunka, cagabararka, dhabar xanuunka, laab-oolka, waxyaabaha dhan waxaa sababaya cuntada xumaatay. marka hore dhakhtarka u tagaysan waxaad ugu tagtay waa cuntada xumaatay. marka hadda dib loo eego loo raaco kale waxay lagu leeyahay yani waqtiyada dawooyinkan iyo dhakhaatiirtan ay bateen waxa weeyaan waa moore cuntada soo xumaatay. halkan aynu ku noolnahay dadka qurbaa ku nool hawadii oo nadiif ahayn, cuntadii oo la bacrimiyey, waxaasoo dhan baa isku biiray. kadibna maxaynu ka dhaxalnay? waxaynu ka dhaxalnay xanuunaad moodo inaynu hidabo helaba, macaan, dhikar, gaas, lab-olol, babaasiir, calool istaag. yani xanuunka lagu sheegayna waa caloosha bay ku istaagantahin. wax weyn 20 kun oo xanuun baa isugu kabiiray. markaas dadka qaar waxaa jira subxaan allah maanta oo Soomaaliyeed oo isbuucii hal mar ama 2 jeer dhakhtarka taga oo laga soo nadiifiyo. waa saxaradii caadi ma soo tagaysid. marka maanta haddaad ku sugan tahay alxamdulillah, dad baan ku sugnayn maanta. wax yani maha ciyaara. marka madaxa yar ku xanuunaad garan kartaa faa'iidada caafimaadku leeyahay. walaalahaas marka waxay u baahan yihiin in iyagu ay go'aan qaataan, ay is sameeyaan cuntadooda bedelaan. haddaanad garanayna qof Soomaaliya oo luqadaadii ku hadlaya oo kula hadlaya bay kuu soo gudbinaya kule okay kaalana bedelaya, anaa ku caawinaya wadadaad mar lahayd saad u guulaysan lahayd. laakiin mushkiladda ugu weyn waxa weeyaan adigii oo la rabo in lagu caawiyo haddii madaxu ku xiran yahay ama qof kale madaxaaga xiray, waa mushkiladda ugu weyn taas. because nolosha adigaa iskale, naftana adigaa wax lagaa weydiinaya iskale. maha nafta saaxiibka ama saaxiibada waxba lagama weydiinayo, waxna kama qusaan. marka waa inaad tiraahdaa saaxiibada fikirkeeda aragtida ku ixtiraamtaa, tiraahdaa okay aad marka qofkii aad aqoon iyo cilmi aad ku tuumaysa leedahay wana isbedelkaas rabaa u baahan dhibaatadaas ay haysa caloosha ay taagan xanuunada tirada badan laan qaba sidaan uga bixi karaya. horta xanuunada ilaahay baa keenay subxaana watacaala, allah inaga qaado. laakiin xanuunadan waxaa dhaliyey waxa weeyaan exactly waa cunto xumadii. cuntada haddaad badashaan noloshaadu way isbedelaysaa. haddaad laakiin cunto xumada haddii aad ku noolaato de saliidaadii waxa ay ku noolaatan waxa weeyaan waxaad kusii noolanaysaa dee
mushkiladii caadiga ahayd inaad dhiikar gas aad dawooyinkaagii aad qaadato adigoo markaa maanta bulshadaadii caawinaya ayaad maanta ajarna helaysaa dhaqaalo samayn kartaa wax kasta samayn kartaa gurigaaga adigoo jooga xaaskaaga carruurtaada la jooga baad noloshan bedel samayn kartaa adiguna isbedel samayn kartaa maanta haddaad noloshaada bedesho cuntadaada bedesho cuntadaada bedel waa noloshaada bedel dad cuntadaada bedesho maanta waxaan ku waa 100% inaan dhakhtar dambe aanu dibahnayn dhiirigelintu waxay ka bilaabantaa naftaada marka waxaan idiin sheegay waxay muhiim u tahay waa naftayda iyo nafiina isbedel waan sameeyno dunida waan la jaan qaadi karnaa maanta carab ay noogu dhow xitaa way naga cunto wanaagsan tahay marka aad u fiirsato waxyaabay cuneen inagu bariis iyo baasto 40 sano soo cunayso maxaad xikmado kaaga soo kordhay aan ka intana ku sheegay caloosha ku taagan madaxa ku xanuunaya salaam alaykum dul walaayo daba taqaana ad saluugayso oo leedahay sabab marbaad salaantay mar labaatan iyo macne والسلام عليكم تي النبي صلى الله عليه وسلم لها ميديش wax dad sameeysan isjeclaanaysan oo naxariisina wadgeli korkaaga haata badsaluuga sallallahu leedahay ii sababe marbaad salaantay maxaad mar labaad igu soo celisay taasna waxa keenaysa madaxaagani inuu si fiican u shaqeeyo wuxuu ku xiran yahay inta vitamin uu haysto jirkaaga inuu awood yeesho oo ka lahado oo danahaaga qabsato gurigaaga ka shaqeysato nadiifsato oo danahaaga u foofto waxay ku xiran inta vitamin haysto hadii kale wahsi iyo caajis iyo daal iyo taa waa saysataan marka muhiimku wuxuu yahay naftada bedeli kartaa noloshooda bedeli kartaa waad samayn kartaa sida qeyrkaaga si ka tirabaad u noolaan kartaa muhiimadu waxay tahay war la helaa tala la helaa wixii aad u baahan tahay su-aasha waa lacalaa la soo xiri kartaa dhammaantii aad mahadsan tihiin muuqaalkan iyo muuqaalada kale aad aragteen hadday suurtagal noqoto la sii wadaag walaalahaaga ilaahay jira xasaad iga sii wad mahadsan tihiin in badan bayd islaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu